السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك حين جنال كين وهليا ومدا كسود وتحنين شنار يكون هبيني فضلا هدي أدنو عصب تسود و سبسكرايب صار جنبلاك كان الرقم سي كوسو جاران وحول بأن صادق ندربذي با هدي أظهرين ولا جوتينا لايك صار سينا شرقري ولا ودك أصحاب تاذا كندي وفكر كيف يعني كنا سوق قرقبته هو سيكم تياذا مركز دعوة كذب أنا جن سي أي دي رجلين يقول نقطه ما السنة تحضرنا دعوة شو عن شيء كذي وحنا مريسي قيبتي هوري ننكي لبذ أي asigoo hadalkiisa sii watay ayuu wuxuu dhahay kadibna waan safarnay aniga iyo labadii wiil ee ila dhashay waxaana horay u sii qaadanay lacagtii 3000 ahayd labadan wiil ee ila dhashay jiniyaho waxay ahaayeen kuwa aad xaasid u ah aadna way ii dhibi jireen laakiin aniga waan iskaga dul qaadan jiray maadaama ay walaalahaygi yihiin kadibna waan safarnay anagoo mudbil ah safar ku jirna ayaa markii dambe tagnay magaalo aad u camiran markaas ayaan badeecadii aan wadnay suuqa u iibgeynay waxaan halkii diinaar ka faa'iidnay 10 diinaar kadibna waxaan go'aansanay inaan safar kale galno maalinkii aan safarka gali lahayn maalintii ka horeysay anigoo keligay xeebta maraya ayaan waxa xeebta ku arkay gabar jaariyad ah oo aad u qurux badan markaas ayay igu tiri inta ii soo dhawaatay walaalow waxaan kaa codsanayaa inaad i guursato oo aad baladkaaga ii wadato waxaan ku hibeeyay naftayda ee macruufkan ii sameey waxa laga yaabaa inaan abaalkan maalin uun ku gudo markaan hadalkeeda maqlay aad ayaan ula yaabay qalbigeygana wuu u jilcay anigoo ka naxay in gabar kaligeeda meeshaan cidlada ah joogto iyo duruufta ay ku jirto markaas ayaan waday waxaana u soo iibiyay dhar aad u qurux badan anigoo sidoo kalena markabkii meel aad u qurux badan ugu habeeyay waana guursaday kadibna safarkii ayaynu galnay gabadhu waxay ahayd gabar aad u furfuran oo dabeecad wanaagsan markaas ayaan aad u sii jeclaaday oo qalbigeyga hanatay heer waxaan gaaray habeen iyo maalinba aan ayada ag fadhiyo waxaanan ka mashquulay walaalahay markaas ayay aad iga maseereen ayagoo xaasidnimo ii qaaday waxayna iga xaasidayeen hantidan oo ilaahay ii barakeeyay iyo gabadhan aad u quruxda badan oo ilaahay ii siiyay markaas ayaa shaydaan naclata ku dhacday xumaato u qurxiyay iyaga oo go'aansaday inay i dilaan hantideeda oo dhanna kaligood ku wareegaan habeenkii dambe ay ii yimaadeen anigoo hurda kadibna inay i soo qaadeen ayay badda igu rideen markay xaaskayga shanqartii ku buraarugtay ayay aad u xanaaqday ayadoo isku bedeshay cifriid aad u weyn waxayna isku soo tuurtay biyihii badda kadibna way iga soo saartay kadibna waxay i geysay jasiirad cidla ah cabaarna way iga maqnayd markaas ayay ii soo laabatay markay ii timid ayaa weydiiyey maxaad ahayd yaa tahay sidee wax u jiraan markaas ayay igu tiri anigu waxaan ahay xaaskaaga halkaana aniga ayaa ku keenay oo badda kaa soo saaray waxaana kugu tuuray walaalada idin alle ayaana ku badbaaday waxaad si ogaataa inaan anigu ahay gabar jin ah markii ugu horeysay aan ku arkay ayaana ku jeclaaday waxaana kugu jeclaaday iimaankaaga iyo daacadnimadaada waxaan ahay gabar mu'minad ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan laakiin hadda aad ayaan u xanaaqsanahay xanaaqaygana ma degayo anigoo aanan ciqaabin kuwii badda kugu tuuray markii aan hadalkeeda maqlay markii hore waan ugu mahadceliyey inay nafteeda badbaadisay laakiin waxaan ka codsaday inay walaalahayga dilin oon u sheegay inaanan ka samri karin wax kastaba ha igu sameeyaane waxaan u sheegay inay walaalahayga yihiin laakiin way iga diiday waxayna igu tiri isla caawa ayaan iyaga iyo maraakiibtooda isku soo duminayaa markaas ayaan waxaan ku idhi qofka mu'minka haddii la xumeeyo xumaanta xumaan kale kuma bedelo wanaag ayuu ku bedelaa qofka xumaanta sameeyeyna kolay naftiis uun ayuu halaag usoo jiiday oo qof kale waxba kama qaadi karo sidii aan u dejinayay ayay ii ogolaatay inaysan dilin laakiinse waxay igu tiri waa lagama maarmaan inaa ciqaabo xataa haddaanan dilin ciqaab la'aan ma ahaan doonaan markii aan magaaladeeda ku naqday oo aan dukaankayga furtay ayaan waxaan arkay labadan oo meesha joogaan markaan weydiiyeyna waxay igu tiri waa walaalada kanina waa ciqaabtooda oo walaasheeda sixirka taqaano ayaa sidaan u sixirtay waxayna sidaan ahaan doonaan muddo 10 sano ah cifriid yahow waxaa dhacday inay soo dhammaatay muddadii 10 sano ahayd anigoo u socdo xaaskayga walaasheed oo walaalahayga sixirtay si ay sixirka ugu furto ayaan waxaan arkay ninkan meesha fadhiyo iyo odaygan deerada wata markaas ayay ii sheegeen siday waxay u dhaceen anna halkan ayaan fadhiistay si aan u ogaado dhammaadka sheekadan jin yahow haddii aad ka hesho sheekadana dhex martay anigii iyo labadan oo walaalahayga ah ninkan dhiigiisa 3 meelood meel ii hibay markaas ayaa jinigii la hadlay labadii oo ku yidhi marun baa ninkan wuxuu sheegayo madaxa ayay ruxeen ayagoo leh hahey markaas ayaa jinigii yidhi wallahi waa sheeg la yaab leh aad bay i cajibisay ninkan dhiigiisa 3 meelood meel waan ku hibeeyey markaas ayaa waxaa hadlay odaygii saddexaad oo baqasha watay wuxuuna yidhi jin yahow haddii anna kaga sheekeeyo sheekadana dhex martay anigiyo baqashaan oo ay ku cajib geliso ma ii hibeynaysaa ninkan dhiigiisa inta ka hartay markaas ayaa jinigii yidhi haa haddii ay cajibiso kolkaas ayaa odaygii baqasha ah uu yidhi jin yahow boqorkii jinniyadow
baqashaan aad u jeedid waa xaaskaygii. Anigu waxaan ahaa nin ganacsada ah, waxaana lahaa hanti badan. Maalintii dambe ayaan baxay oo safar aaday, waxaana maqnaa muddo sanad ah. Kadibna waan soo laabtay. Markaan gurigeyga imid ayaan waxaan arkay naagteeda oo sariir la saaran nin adoon ii ahaa. Markay aragtay ayay hadal aanan fahmayn igula hadashay. Ayay biyo meesha yaaleen igu shubtay. Waxayna igu tiri ka bax muuqaan aad tahay oo ay noqo. Isla markii waxaan isku bedelay oo yeeshay muuqaal ay. Kadib gurigii ayay iga soo ceerisay. Kadib waan iska soo baxay anigoo isku hayo inaan riyoonayo iyo inay wax dhacayaan ay run tahay. Sidaan u soo socday waxaan u imaaday nin kabaanla ah. Markuu i arkay ninkii kabaanlaha ah wuxuu i siiyay xoogaa hilib ah iyo lafo. Wuxuuna ii sii watay gurigiisa. Markaan gurigii aan galay ayaa waxay aragtay gabar uu kabaanlaha u dhalay. Waxayna ahayd gabar sixirka wax ka taqaana. Waxayna i dareentay inaan sixiranahay. Waxayna aabaheeda ku tiri aabow maahan waxayna hortaagan waa nin miskiin ah oo naagtiisa sixirtay. Waxaana awoodaa inaan sidiisii caadiga ahayd ku soo celiyo oo sixirka ka furo. Markaas ayuu ninkii kabaanlihii ku yidhi gabadhiisa gabadhaydii waan kuu daceynayaa ninkaan sixirka ka furo. Markaas ayay weeler biyo ku shubtay wax ku akhrisay kadibna igu firdhisay. Waxaana ku soo noqday suuradda uu Ilaahay ii abuuray anigoo isla markiiba ka codsaday gabadhii inay iga caawiso sidaan ugu aadsan lahaa naagteedii i sixirtay. Waxayna i siisay weel biyo ay ku jiraan oo ay wax ku soo akhrisay. Waxayna igu tiri markaa igu horeyso aad naagtaada aragto biyahan ku sayri, waxaadna ku tiraahdaa intaad xayawaan niyeysato xayawaankaasi noqo. Waan soo baxay intaan biyihii xaaskayga ku seeriyay ayaan waxaan ku yidhi baqal noqo. Sidaas ayayna baqal ku noqotay. Waana mid aan kusoo fiirinaysa iminka. Markaas ayuu cifriidkii baqashii fiiriyey asigoo ku leh masax baa ninkan wax uu sheegayo. Markaas ayay madaxa ruuxday iyadoo ku leh haahey. Markaas ayuu jinnigii intuu gilgili seeftiisii yidhi waan ku hibeeyey ninkan dhiiggiisa inta ka dhiman. Markay sheekada intaasi maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaaray wayna aamustay. walaasheedii ka yareed ee Dunizaad ayaa waxay tiri maxaa ka macaan sheekadaada kana fiican walaal. Markaas ayaa Shahrazad tiri tan wax ma ahan haddii loo barbar dhigo sheekadaan habeen dambe idinka sheekeen doono. Waa haddii uu boqorka ii ogolaado inaan noolaado. Markaas ayuu boqor Shahriyar yidhi ilaahan ku dhaartay inaan dili doonin tan ilaa ay sheekada ka dhamayso, waayo waa sheeko aad u cajiib ah. Sidaas ayay gabadhii dilka ugu badbaaday. Waad ku mahadsantahay.